السلام عليكم magacaygu waa Amiin Amni halka naga daawanaysaan waa kanaalka Faraxlow maanta waxa rabaa inaan idin wadaago horumarka ka jira degmada Waaberi ee gobolka Banaadir degmo uu ku dhashay madaxweynaha dalkeena Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba aan ugu galno muuqaal cusub oo aan ugu hadlayno degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ugu horeyn muuqaalkan uguma hadli doono ganacsiyada ka jira degmada Waaberi sababtoo ah inteena badan waan aragnay oo waan ka warheynaa ganacsiyada ka jira degmada Waaberi inay tahay mid horumaraya balse waxaan doonayaa inaan idin wadaago bilicda ka jirta degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaan isbarbardhig ku sameynayaa 10 sano ka hor sida ay ahayd degmadan iyo sida ay maanta u korayso dhanka dhismaha waxaan haatan ku suganahay xaafad ka mid ah degmada Waaberi laguna magacaabo waaxda Oktoobar waaxda Oktoobar ee degmada Waaberi waa halkan ku soo barbaaray sidoo kalena ku soo bartay dugsiga Quraanka Kariimka kuna soo bartay iskuulkeygii Rajab oo qayb ka mid ah ku yaala waaxda Oktoobar ee degmada Waaberi degmada Waaberi waxa ku dhashay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waliba ku soo barbaaray muddo badan wuxuuna degnaa gurigan aad u jeedaan ee nusbooska ah balse markiisii hore ahaa mid boos ah madaxweyne Farmaajo burburkii kadib ayuu ka guuray degmadiisa Waaberi wuxuuna tagay oo uu wax ku soo bartay dalka Mareykanka gurigan uu ku dhashay madaxweyne Farmaajo waxaan isu jirnaa wax ka yar 3 daqiiqo maadaama xaafadda aan ku soo barbaaray iyo xaafadda uu ku dhashay madaxweyne Farmaajo ay yihiin hal xaafadood degmadu 16 sano ka hor maysan ka jirin horumar weyn 16 sano ka hor degmada Waaberi maysan lahayn dabaqyo fara badan xitaa daaraha tirada yara ee ku yaalay degmadan Waaberi waxay ahaayeen kuwa qadiimi ah waliba aanan lahayn wax bilic ah waxayna ahaayeen mid u baahan dib u dhis balaaran daartan 3 biyaano ee aad u jeedaan sanado ka hor intaan la dhisin qayb ka mid ah wuxuu ka samaysnaa qoryo iyo saxarada lo'da balse markii ay iibsadeen muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa u dhistay sidan quruxda badan tanina waxay ka mid tahay isbedelada ay sameysay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir sidoo kale daartan quruxda badan ee aad u jeedaan sanado ka hor waxay ahayd guri buush ah balse maanta waxa sidaan u dhistay muwaadiniin Soomaaliyeed oo gartay muhiimadda ay leedahay in dalkooda ay qurxiyaan oo ay horumariyaan waxayna daartan ka mid tahay daarihii ugu horeeyay ee xaafadan laga hirgeliyo ama laga dhiso ha ka reebin daartanne oo iyadu ahayd sidoo kale guri buush ah sanado ka horna loo bedelay ceel biyood balse ceelkii waa la dumiyay oo haddana waxaa laga dhigay daartan aad u jeedaan ee quruxda badan qayb ka mid ah daartan aan idin sheegayo waxa ka bixi jiray geed loo yaqaanay boocbooc kaasoo inta badan degmadan Waaberi ka sii dabar go'aya degmada Waaberi waxa aad ugu sii badanaya daaraha casriga ah iyo villooyinka casriga ah ee laga hirgelinayo afarta waax ee degmada Waaberi 16 sano ka hor guryaha boosaska ah ee ku yaala degmadan Waaberi waxa la iibin jiray lacag u dhaxaysa 15,000 ilaa 18,000 oo dollar halka sanadan aan ku jirno ee 2021 la iibinayo booskiiba lacag u dhaxaysa 100,000 ilaa 130,000 oo dollar hadba waxay ku xiran tahay guriga halka uu ku yaalo iyo sharcigiisa sida uu yahay tusaale ahaan guriga haddii uu ku yaalo wadooyinka laamiga ah way ka qaali badan yihiin kuwa aan laamiga ku oolin oo guriga laamiga ku yaala ayaa mar walba aad qaali u ah sababtoo ah guryaha laamiga ku yaala waxay ku fiican yihiin ganacsiyada sida dukaamada farmashiyada garaashyada iyo wixii la mid ah sidoo kale inta badan waxa aad qaali u ah guryaha haysta sabarlooyinka madaxweynihii hore ee Siyaad Bare Allah u naxariistee daarahan aad u jeedaan waxa la dhisay sanad iyo bilooyin ka hor waxayna ahayd kaam weyn kaasoo raashin lagu siiyo dadka duruufaysan waxaana iska lahaa kaamkan muwaadiniin Soomaaliyeed laakiin qaar ka mid ah dhulkan waxa laga iibiyay isla muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed kuwaasoo ka hirgeliyay daarahan casriga ah kaasoo bilic ka dhigay degmadan Waaberi degmada Waaberi waxa ka sii dabar go'aya nadaafad daradii ka jirtay sanado badan ka hor oo degmadu ma aysan lahayn shirkado qaada qashinka god in la qodo ayaa lagu duugi jiray ama waa la gubi jiray taasoo cudurro fara badan dhalisa oo ay ka mid tahay naqaska oo qofka ku dhaga balse in qashinka la gubo waxa ka hortagay shirkadda qashinka qaado ee lagu magacaabo Eco shirkadaas oo ka howlgasha magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir
sidoo kale degmada Waaberi waxaa ka jira waxyaabo u baahan in wax weyn laga qabto. Tusaale ahaan, haddii uu roob da'o, waxaad arkaysaa biyihii roobka oo ay marayaan xaafadaha laguna soo shubayo qashin, kaasoo sababta in qashinkaas faraha badan uu xiro laamiyada, laamiyaduna noqdaan kuwa go'doonsan oo dhex yaala caro, qashin iyo biyo fara badan ayna mari waayaan gawaarida xitaa shacabka. Haddii muwaadin walba Soomaaliyeed uu xil weyn iska saaro inuu iridiisa hortiisa ka dhiso interlock, joojiyana qashinka lagu qubayo banaanka, waxaa gebi ahaanba joogsanaya caradii iyo qashinkii yaalay wadooyinka iyo xaafadaha. Degmaduna waxay noqon doontaa mid ka sii wanaagsan bilicda ay maanta leedahay. Waxyaabaha aad ku arki karto degmada Waaberi waxaa ka mid ah biraha iyo guryaha sharci darada ah ee laga dhisay welina laga dhisayo hareeraha wadooyinka. Haddii mararka qaar ay laamiyadu jaam galaan, waxaa gawaaridu ku adkaato inay si toos ah u maraan xaafadaha degmada Waaberi, sababtoo ah xaafadaha waxaa ka dhisan boosaneero ama shamiindooyin, kaasoo sababta in gawaarida si toos u mari waayaan xaafadaha degmada Waaberi, waxayna maraan gawaaridu luuqba luuqa ku xiga, taasoo ka khasaarisa waqti badan oo lacag badan ku shaqaysan kareen. Sidoo kale degmada Waaberi iyo guud ahaan magaalada Muqdisho waxay u baahan tahay drainage ama bulaacado qaada biyaha roobka si looga hortago wadooyinka biyuhu fariistaan, gawaariduna ay ka nastaan dhibaatooyinka ay ku qabaan biyaha roobabka ee wadooyinka fariista. bulaacadaha qaada biyaha roobabka way lahaan jirtay magaalada Muqdisho, balse waxay ku burburtay burburkii dalka ka dhacay. Hal sano ka hor, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir iyo khubaro heer caalami ah daraasad ay sameeyeen oo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa biyo-degeenada wadooyinka magaalada Muqdisho loona helo wadooyin biyo mareena casri ah. Wuxuuna maamulka gobolka Banaadir sheegay in biyo mareenadaas casriga ah ku kacayo lacag dhan $337 milyan. Bangiga Adduunka ee World Bank ayaa daraasadan la sameeyay maamulka gobolka Banaadir, wuxuuna bangiga ballan qaaday inuu bixinayo $37 milyan, halka maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen inaysan bixin karin $300 milyan ee soo hartay. Waxayna baaq u direen madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha saaxiibka ah Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah inay ka caawiyaan qarashaadka ku baxaya wadooyinka biyo mareenada ah. Insha Allah waxaan rajeynayaa in la helo wadooyin biyo mareena casri ah kuwaasoo ka hortagi doona biyuhu laamiga xiro si gawaaridu iyo mootooyinka ay xil walba u shaqaystaan.